saaxiib ayaa ku heshiiyey tartan halis ah in ay kor ugu tartamaan dhismo dhererkiisu yahay 1 mitir. Qofkii ugu horeeya ee gaarana dusha sare ayaa ku guuleysan doona. Markii tartanku bilaabmay, labaduba waxay bilaabeen inay derbiga fuulaan iyagoo aan haysan wax qalab ah, gacmahooda iyo lugahoodana ku tiirsan. Inkastoo dhismuhu aad u dheer yahay, midkoodna ma dareemin cabsi. Wax yar kadib, ugu dambeyn waxay isla mar gaareen dusha sare. Nasiib darro, labada saaxiib midkoodna ma doonayn inuu aqbalo guul darro. Markaas ayaa cirka mugdi galay oo hilaac iyo onkod xoog leh ka soo yeeray. Iyagoo garanaya waqtigu inuu kooban yahay, mid ka mid ah ayaa saaxiibkii mashquul si uu fursad uga helo oo isaguna dhanka kale u riixo si uu isaga keligiis ugu dhawaaqo guuleystay. Laakiin saaxiibkii la riixay ayaa ka xanaaqay, aadna uga cadhooday. Wuxuu si toos ah ugu weeraray, hase yeeshee ninka kale wuxuu ku mashquulsanaa inuu sawiro iski ah selfie ka qaato si uu guushiisa u dabaaldego. Intii uu sawirada qaadayay, saaxiibkiisii ayaa si lama filaan ah u riixay, taas oo sababtay inuu si degdeg ah uga dhaco geeska dhismaha. Isagoo sii dhacaya ayuu isku dayay inuu xarig ku xidho jaranjarada, balse wuu gooy, taas oo sababtay inuu si xawli ah hoos ugu dhaco. Wuxuu isla markiiba furay baarashuudkiisa, balse ma awoodin inuu si fiican u xakameeyo sababo la xiriira xawaaraha uu ku socday. Si mucjiso ah ayuu ugu guuleystay inuu jihada u bedelo dhismo kale, wuxuuna ugu dambaystii ku dul degay shir qarsoodi ah oo ay ku jireen xubno ka tirsan maafiyada.